buundada laba walley oo ku taala wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa waxa ay ku burburtay roob dhowr bilood ka hor ka da'ay Puntland waxaana muddadii ay burbursaneed ay saameyn ku yeelatay gaadiidka wadada isticmaala hay'adda wadooyinka Puntland ayaa dib u dhis ku samaysay buundada waxaana meel gabagaba ah xilligan maraya dhismaha buundadani injineer Haashim oo ka tirsan shirkadda Albishaar ee gacanta ku haysta dhismaha buundadani ayaa ka waramaya halka ay hawshu marayso ka duwan yahay kani shaqadan wadada way ka duwan tahay shaqooyinka hore loo qabay sababtoo ah laba arrimood baa jira wadadani waa leex qalloocda ku jira kubooyinka la dhigay angle baa loo dhigay qalooc wax la yiraahdo skew baa loo sameeyay 45 degree ayay qalloociyeen maadaama wadada ay tahay meel curve midda labaad waxa weeyaan height-ka dhulka iyo wadada laamiga ah ilaa 5 mitir iyo 20 weeyaan waad garan kartaan culayska ay leedahay shaqadan nasiib wanaag shaqada inta badan oo concrete-ka ahayd way qabsoomay waxa noo dhiman waxa weeyaan waxyaalaha la yiraahdo wing walls darbiyadii biyaha soo celin lahaa in la shubo iyo in sawgeedan ciidii oo ku bilownay in ciidii la dhigo oo ilaa la gaaro levelkii wadada ahayd dabadna laamiga gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan BHA Maxamuud Cabdinuur Aadan ayaa dhankiisa xusay in hay'adda xilligan qorshaha ay ugu jirto sidii dib loogu dhisi lahaa buundooyin kale oo ku burburay roobkii da'ay waxaan iyaduna burbursan ama la cimri ahaa buundada tan 4,000 oo buundo oo ku jira magaalada Boosaaso ilaa iyo Garowe oo iyaguna u baahan in shaqo kuwaan la mid ah laga qabto waxaan aad ugu faraxsanahay mishiinkii sameynayay beebkan hadda inii muuqda oo shubka ah inay shirkaddan wadaniga ah keentay halkii kambanigii hore Talyaaniga ahaa uu geliyay wax la yiraahdo steel ama bir yar oo jiingad ah oo runtii aynu muddo dheer ku soo moodnay waxaan rajaynaynaa buundooyinka kaleetana inay sidee tan uga qayb qaadan doonaan iyadoo hadba capacity-ga dhaqaalaha ee dawladda Puntland aan ku xisaabtamayno aad baan ugu faraxsanahay sida shaqo ku socoto